السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابي سوماليي ميل والبا joogtaan ma walaashii nacaymanalka waxaan rabaa qaasatan inaan la hadlo reer Minnesota, especially reer Minneapolis, St. Paul area, Twin City dadka degano ilaahay ka baqa. Soomaali baa tihiin, aakhir waa la dhimanayaa, waxaan aakhira la tagayaa, waa laga tagayaa, waxaan waa xoolo adduunyo. dadka sharciyada haysto ilaahay ka baqa. waad ogtihiin dadka derbiga ka soo booday ee qaraabada aad tihiin ee Soomaalida isla tihiin, weliba qaraabo kaliya maaha, waa xataa Soomaali derbiga booda oo wallaahi baahi u mantagaya oo baahi u dhimanaya la iisoo sheegay. aniga mid baan indhaha saara, midkaasna inaan caawiyaan isku dayaya insha allahu tacaala, oo aan waxaanu qaban karo u qabto. laakiin ilaahay baan ku dhaartay, wiilashu way baaba'een, way dhinteen, way dhuubteen, dhaacaankii baa ka dhammaaday jirkooda ku jiray. qaar baa dhiig mantagaya la leeyahay, qaar baa maaragtay muxuu ahaa abuur mantagaya gaajo aawadeed. 3 biloodna cunto may cunin, oo waxaa laga yaabaa bishii hal marna wax cunaan ama 2 jeer ama 3 jeer bes, waa bisha dhan. ilaahay ka baqa. Minnesota say ku joogaysaa, say nabad ku noqoni iyadoo dad dhibaataysan ay nala joogaan oo muxuu ahaa sharci haysanin, kaarar caafimaad ma haystaan, dhakhtar ay ku aadaan mana aadi karaan. communitiyada intaa tagtaan uga soo qaadi raashinka ayagaa karsanaya, wayna karsan karaan hilibka iyo bariiska iyo muxuu ahaa saliidda iyo timirta iyo wax walba u geeya. haddana ramadaan baa soo socda, war ha loo geeyo cunto, muxuu ahaa daawooyin ha loo geeyo, xanuun baabi'iyo iyo borotiin ha loo geeyo, fiitamiinaha loo geeyo. ilaahay intaad ka baqdaan Soomaalida Minnesota degan, dadka way go'ayaan, way dhibaataysan yihiin, aakhirana waa naloo haystaa. dadkan sharci haddayna haysanin inaan ku digana maaha. annaga waa xaragoonaynaa, waan cabaynaa, waa cunaynaa, cuntadeena waa cunaynaa. nimanka derbiga boodka badanaa ayaga way wax dhibaataysan. gabdhaha faamiley la joogaan, saa u malaynay gabdhaha haddii jiraan dhibaataysanna ayagana farlan soo harla. aniga luuqa iisoo gala, qof walba gurigiisa waxaa ugu keenayaa raashin, waana idin keenayaa raashin baa idin keenayaa, cabitaana idin keenayaa, daawooyin. midda kalena qofkaan looyar haysanina looyar free baan u hayaa, looyar free oo lacagna kaa qaadanaynin. looyaro free baa jiro oo lacagna kaa qaadanin, sida sharciga ahna kuu doodaya oo maaragta aan ku dhibaataynaynin, maxkamadana kuu raacaya, social worker kuu doodaya, inta looyarka aheed ka helaysid ku caawinaya, meel walba aad rabto ku geenaya. xataa dhakhtaro free bay ku geenayaan oo caafimaadkaaga kaa caawinaya, intaa kaar caafimaad ka helaysid, sharcigaaga ka helaysid, waxyaalahaasaa lagaa caawinayaa. fadlan isoo raaca, luuqana iisoo gala, qoraal iisoo qora, meesha aad joogtaan magaciina waxaan idin dirayaa oo idin geenayaa. gabar baa idinku xirayaa oo idinka caawinayso ilaa intaa looyar ka helaysi. maxkamadda iyadaa idin raacaysa, dhakhtar caafimaad oo firiina iyadaa ku geynaysa. gabadhaas baan hayaa, fadlan raashinna waa idin keenaysaa. soo harla, derbiga boodow soo harla, luuqa soo gala, waa idin caawinayaa. aniga raashinka waa awooda inaan keena, laakiin waxaa iga fiican gabadha social workerada ah, xuquuqul insaanka ka shaqaysaa. waa gabar xuquuqda bini'aadnimada u dooda, oo xuquuqul insaan ka shaqaysa, oo muxuu ahaa dadka dacadiga iyo dhibaatooyinka loo geysta u dooda, dumarka lasoo abuse gareeyay u dooda, dhalinyarada lasoo abuse gareeyay u dooda. weeyaan gabadhaas way kuu doodaysaa, ama dumar ahow ama caruur ahow ama nin ahow way kuu doodaysaa. farlan isoo raaca. youtubekana waan soo dhigayaa, tiktokana waan soo dhigayaa, facebookana waan soo dhigayaa, snapchatkana waan soo dhigayaa. halkaas igala soo xiriira. gabadhaasa idinku xiraya insha allahu tacaala, si sharaf leh oo qiimo leh idinka caawinayso. gabadhaas gabdho badan oo Soomaaliya la shaqaysaa oo community leh, gabdhahaasna way kaa caawini, laakiin kuguma halaynayso Soomaali. iyadaa shaqo walba ood u baahanta, wax kasta u baahantiin kuu dhammaynayso. looyarna iyadaa kuu qabanaysa, lacagna uma baahnin. dadka looyarka aan haysaninow isoo raac. dadka aan caafimaadka haysaninow, kaar caafimaad haysaninow isoo raac. dadka aan maaragtay muxuu ahaa meel uu sooxday yahay uu sooxday haysaninow isoo raac. xataa meelaha seexata waa lagu geenayaa, guri baa lagu kiraynayaa oo ayaga ay kaa bixinayaan. fadlan isoo raaca, anaa idin haayo, hay-adaasna ana aqaano, waana idin geenayaa. wallaahi waa idin ballan qaadayaa. isoo raaca, luuqana soo gala. qof walba ma aragto sharciga kaar caafimaad haysanin iyo looyar intaba isoo raaca, iyo cunto wuxuu cunan haysanin.
intaas aana usoo galo aniga waayo waxyaalaha qaar dhacaya waan arkaa indhahaygaana ku arkay markhaati baan ka ahay dee waxaa sameeya gara waaya laakiin hadda fikirkan waxaa igu soo dhacday mar dhow inaan video iska duubo oo aan dadka u bandhigo waayo haddaanan wixii sheegin la ima ogaan karo ma la ogaan karo muxuu ahaa ayagina ma isoo raaci karaan isma helayna dadkii aan u baahnayn anigana maaragtay ayagana ima helayaan ana ma helay laakiin hadda alxamdulilah fursadan ka faa'iidaysta ilaahay baan noo fududeeyey waana idin caawinayaa anoo naciimo nalka isoo raaca walaalayaalow fadlan isoo raac luuqa iisoo gal dhakhtarka waxa dhan ii furtay wallaahi free baa ku helaysaan free soomaali ma u baahnidin gabadhan waa gabar cadaana waa idinku xirayaa isoo raaca fadlan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kastana gaarsiiya qof walba qofka kale ha u sheer gareeyo